soo dhawow maanta waxaa ka hadli doonaa video editing ama muuqaal samayn saa u taqaano haddii aad tahay qof content creator ah ama xog ku soo gudbiya Facebook, TikTok iyo YouTube waxaa u baahan tahay inaad hesho software kaa caawin kara in howlahaaga si degdeg ah u qabsato dabcan marka laga shaqeynayo muuqaal samaynta waa howl runtii aad u dhib badnaa jirta waagii hore haddase 2024 maaha kuwa waqti badan iyo qarash badan lagu bixiyo balse kumanaanka kun ee muuqaalada sameeya si aad uga duwanaato waxaa u baahan tahay inaad la timaado hal abuur dheeraad ah ugu horeen softwareada wax lagu editing gareeyo aad ayay u tiro badan yihiin haddaan wax yar kaaga sheego waxaa ka mid ah DaVinci Resolve, Vegas Pro, CapCut iyo Adobe Premiere Pro intaan software kor kugu soo xusay mid waliba waxaa isticmaasha malaayiin qofood balse su'aasha taagan ayaa ah midkee ayaa kugu habboon marka aad bilow ku tahay saaxadda muuqaal samaynta haddii aad tahay qof bilow ku ah muuqaal samaynta waqtigan 2024 waxaa kugu habboon software-ka la dhaho CapCut markii aan warbixintiisa akhriyay waan la yaabay shaqada uu qabto waxa uu kugu shaqeynayaa mobilkaaga Android iyo iPhone waliba ha ka reebin PC iyo laptop haddaba CapCut waxyaalaha uu ku fiican yahay ku arka waxaa ka mid ah inuu dhammaan toolska ugu muhiimsan muuqaalada lagu qurxiyo isugu ka keena hal meel ugu dambeyn hadaa rabto inaad content creator noqoto waqtiyada soo socdo kuna wareersantaa software-ka isticmaali lahayd waxaan kugula talinaa inaad isticmaasho CapCut PC kusoo dhawaad Atom Graphics haddaan ugu cusubtaan isoo follow gareey hadaa hore noola joogto muuqaalin laag dhah siina share gareey si asxaab badan adoo kale ugu faa'iideystaan waa mahadsantahay